Waxaan joognaa xerada qaxootiga ah ee Dhagaxley, meel ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo noloshooda u dhaxaysa samir iyo sabir. Meel ay rajadu mararka qaar noqoto mid ku xiran deeqda Alle iyo naxariista dadka wanaagsan. Waxaan u nimid hooyo Soomaaliyeed oo nafteeda u baahan badbaado degdeg ah. Waa Maama Sahro oo nolol adag ku nool, haddana wajahayso imtixaan kale oo ka culus. Waa cudurka kansarka. Xanuunka kansarka wuxuu Maama Sahro ka qaaday tabartii jirkeeda. Ma haysato lacag ay ku tagto cisbitaal, mana hayso cid si joogto ah u daryeesha. Waa qof aan u baahnayn lacag balse u baahan naxariis, u baahan cod gargaar ah oo laga maqlo meel walba. Haddii aad maqlayso codkan ama aad daawanayso, waxaan kaa codsanaynaa inaad caawiso Maama Sahro. Kansarka wuxuu ku sii fidayaa jirkeeda, laakiin weli waxaa jirta rajo. Haddii aan si degdeg ah u gaarsiino daaweynta ay u baahan tahay. Nafta Maama Sahro waxay ku jirtaa gacanta Alle, laakiin sabab inaad adiga u noqoto waa nasiib adiga kuu gaar ah. Aan caawinno Maama Sahro. اللهم صل على محمد waxaa halkaa ifariisiyay oo gabadha garabka ugu hayo walaashay ah oo ugu ducaynayna in Ilaahay caafimaad siiyo asaa wajallaha awoodda iska leh xero qaxooti baan joognaa way dhiban tahay xanuun baa haya Allah qofur raximka awoodda uu ka qaadi karo anagu aan shaqo ku lahayn ka qaadi karin qaxooti aan taaganahay tabar la lahayn la islaamino dadku ay dad isku mid oo isku garab ay yihiin baan ka hadlayaa gabadha walaashay Sahro xero qaxootina la taagan tahay xanuun baa u dheer Allah awoodda uu ka fujin karo anagu aan shaqo ku lahayn ismeenta islaamka ummadda nabi maxamed meel ay joogaanba waxaan uga codsanaynaa gabadha walaasheena inay garab siiyaan way awood beeshay iyadoo qaxooti joogtay iyadoo xanuunkii u daraa xanuunada u hayay isku darsatay gabadha walaasheena beeb baa dhuunta kaga jira beebki waqtigiisu wuu dhaafay beebkii waxa waaye Ilaahay qadartiisu waaye waxa ka buuxaa la yiraahdo iyo candhuuf iyo waxaan la garanaynin awooday magaalada kaga baxda male miday isku difaacday xanuunkeeda maanta ay la aadan Nairobi male wax allaale waxay haysata malaha waa islaan Ilaahay ummadda dhex taala gacan jabta waxay gunteeda dhex taala maanta ummadda nabi maxamed bay dhex taala gabadha walaasheen oo dhibanaha ah oo caafimaad darradu hayso oo Ilaahay agtiisa wax u yaalaan in agaadana shaqo ku lahayn waxaan ku codsanaynaa ummadda nabi maxamed in gabadha ay u gargaaraan xanuunka hadda haya Ilaahay baa ka qaadi kara awoodiisu kaga qaadi kara anagu midaan shaqo ku leenahay ma aha gabadha Sahra ummadda nabi maxamed waxaan uga codsanaynaa Ilaahay caafimaad horta ay u duceeyaan midda labaadna ay u gargaaraan gargaarka Ilaahay baa iska bixiyana waa Ilaahay baa wax bixiyo anagu waxba ma bixino ummadda nabi maxamed baana qaxooti baan la deganahay wax ma dhaano gabadha ummadda nabi maxamed ay waxa idinkaga codsanaynaa gabadha inaad halka culayska ka qaadaan Nairobi geysaan beebki awooday ku bedelatay laadahay beeb baa dhuunta kaga jira dhuuntu waa dilaacsan tahay malax baa ka buuxday dhiig baa leeyahay awood lagaga bixiyo male adduunku waa iska xumaaday dadku wax ma haystaan dadku waa qaxooti dadku waa cidla joog ninka maanta caafimaad ku qaba alxamdulilaahi rabbil caalamiin kaarkaas iyo kuleelkaas aan taaganahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin Ilaahay wuxuu keenay waa lagu shukriyaa ummadda nabi maxamed waxaan uga codsanaynaa gabadha Sahra inay soo caawiyaan caafimaadkeeda ku gargaaraan tii rabbi haday ku dhumaadaan Allah qofur raxiimka awoodda leh baa ku leh naftani waxa way Ilaahay baa garanaya waxa ilsimana lagu ma waara ilxumana looma dhintay tiraahdaa Soomaalidu gabadha walaasheeya waxaan ugu soo gurmanay daris aan ugu nahay islaan aan ugu nahay ummadda nabi maxamed aan ugu nahay inaan u gargaarno oo aanan xoog iyaga ka hagrano intaan u hadli karnaa tabar kale ma hayna hadal baan haynaa inaan u hadalno baan meesha isugu nimid walaalayaal intii muslim ummadda nabi maxamed waxaan ku codsanaynaa gabadha inay gargaar u fidiso xoolaha laga rabo waa 4,000 hadeer wixii ka shisheeyay hadii la geynayana ma diidayso Ilaahay baa khasabka iska leh tii Ilaahay baana meel taala hadii meelka ka shisheeyay xoolaha aad u soo dirtaan oo Ilaahay idin soo qasabka Ilaahay baa awoodda iska leh
meelo shishe ay ku tagto hadday awoodi weydo Nairobi daana lagu sameeyaa lagu farsameeyaa lagu daaweeyaa in lagu soo daaweeyo ilaahay ku noo khasba Allah ka dhigo inta waxaysata waliba Soomaalida waxa lagu yaqaan gargaar waxa lagu yaqaanay iswaxtar waxa lagu yaqaanay garab orod waxaan idinka codsanaynaa gabadha walaasheeno Sahra xerada qaxootiga degan tahay lambarkeeda la idin sheegaya ugu gargaartaan wixii ilaahay idinku qasbay inaad u soo dirtaan wixii aan ilaahay u soo qasbina shaqo kuma laha awal buu xumaysa tareenka soo qaadkana ilaahay baa iskale gabadha u gargaar gabadha u kac ilmo yar yar bay haysataa waa danyar waa masaakiin rugtaan iyo raaskaan ay degan tahay qof ilmeed iska korsato qaxootigeeda dhex oroday ahayd ilaahay bay tiistay waxaan idinka codsanayaa Soomaaliyay gabadha inaad u kacdaan oo u gargaartaan lambarka ay wadato Sahro waa eber 7 93 lambarka Sahra ay wadato waa eber 7 93 ilaahay idin kaalmeeyo aakhiriya adduun ilaahay idanki ya Allah ilaahay bay sugaysaa idinka ka soo ilaahay bay sugaysaa u sameeyna walaashiis waxaan ummadda Soomaaliyeed soo bandhigaynaa kana codsanaynaa inay soo caawiyaan hooyadan Soomaaliyeed oo la dhibaataysan runtii xanuun ka mid ah xanuunada ku dhaca ummadda Soomaaliyeed ay waayaan dhammaan aad u safar badan gaar ahaan xanuunka loo yaqaan kansarka mudada lagu joogo 3 bilood ka hor ayaa dadkeedu qaadeen waxayna geeyeen isbitaal ku yaala Nairobi ku yaala waxaana loo soo xiray baab kadib markii naftii ay dhiftay baabkii waxa la yiri muddo ayuu ku egyahay markii baabkii loo soo xiray muddadii oo dhamaatay waxay dareentay xanuun bay dareentay waan qaadnay halkaan laga qaaday xagga dheer baa la geeyay markii la geeyay waxa la yiri waxa loo baahan yahay in laga bedelo baabkii maadaama xaako iyo waxyaalo kale ay galeen markii saa la yiri waxa la yiri waxa u baahatay dhakhtarkeedii hore Nairobi in lagu celiyo taasina waxa u baahatay dhaqaale u baahatay marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta caalamka ka joogan waxa ka codsanayna inay taageeraan anigu waxaan ahay qof kamid ah dariskeeda oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa ugu hadlaya maadaama iyadu aysan hadli karin haddana bayb ugu jiro dhoonka ugu jiro ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa ay u caawiyaan نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث كله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قفك بن آدم كمسلم كمرك ويالكي سأو عاوي قريب استاغو سينا أحواشي سي حالديس إله سبحانه وتعالى يا قريب استاغو مركب ولا ليال حنوف وتقران سلام عفوات قيمي صوت قران يسانا وحرق هلدون يا هويدا الصوماليات هويدا سي إسلام نما يصومالي نما كجرتو إنا نعاوينو إلهي درتيسنا وعاونا قف الله قف الموضوع تري كرم إنه تراويت كيسو دعين كرسو دعيه متكيد نقاله كل بحين كرو كل بحيه حياة الأدوم كان يحلوه آخر قلوه معهم